asalaamu calaykum halkan laga daawanaysiin waa wanaagga qoyska alla ugu barateen bararkii ugu dambeeyay barnaamijyo xiise leh. barnaamijka arrimaha bulshada cawada inayna waxaa ka mid ah Sheekh Cabdul Xaq oo lagu magacaabo Sheekh Rusheeye ayaa maanta wuxuu bartiisa Facebook la wadaagay xaaskiisii saddexaad oo ah gabadh aad u qurux badan. Sheekh Rusheeye ayaa wuxuu soo bandhigay xaaskiisa saddexaad oo u dhashay gabar yar. Sheekh ayaa sawiro wuxuu ku soo dhigay bartiisa Facebook asoo gabarka dhunkanayo marna la sawiran asaga iyo gabadha u dhashay. dad badan ayaa aad u falceliyay sawirada Sheekh uu maanta la soo wadaagay baraha bulshada. dad ayaa waxay ku sheegeen in aysan diin ahayn oo Sheekha dadka afduubto. waa kuma Sheekh Rusheeye? su-aashan ay dad badan isweydiinayaan. Sheekh Rusheeye waxaa lagu magacaabaa Sheekh Cabdul Xaq oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed, khaasatan culimada Qur'aanka Kariimka iyo ruqyada ku daaweeyo shacabka Soomaaliyeed. dhanka kale Sheekh Rusheeye ayaa wuxuu ka mid yahay culimada aad experience u leh marka ay imaato cilaajka, oona sheegay inuu dadka ka daaweeyo jinka, sixirka iyo isha. balse fariintu maanta Sheekha u soo gudbiyay ummadda Soomaaliyeed ayaa waxay tahay in culimada ay noqon karaan romantic ayada oo dhanka kale diintana faafinaya. daawada haddaan ku weydiino su-aashan, maxay kula tahay sawiradu maanta la soo wadaagay shacabka Soomaaliyeed Sheekh Rusheeye? ma romantic ba mase waa sawiro dhaqanka iyo diinkaba aan ogoleen? halkaan naga daawanaysiin waa wanaagga qoyska alla u barteen barnaamijyo xiise leh iyo barnaamijka arrimaha bulshada. fadlan haddaan noo subscribe saar si aad u helno asxaab kale waaweynkana kuwaan ado